Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warbaahinta Caalami 24. Barnaamijkan waxaa ku saari doona daawadayaal haddii alla wada ogolaado xaaladaha dagaalada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo maalin toddobaad soconaya. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo ku yimid Israa'iil haddana uu ku joogo waddanka Jordan. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo asna booqasho ku yimid wadamo ay ka mid yihiin Lubnaan iyo Syria. barnaamijkeena ayaan uga hadli doonaa saameynta booqashooyinka wasiirada arrimaha dibadda Iiraan iyo Mareykanka ay ku keeni karaan. Sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaa ku maqli doontaa Israa'iil oo dalbatay in qaybo badan oo qasa ka mid ah dadka ku nool laga daadgureeyo islamarkaana ay isaga baxaan. qaramada midoobay walaac ka muujisa dalabkaas iyo amarka Israa'iil ee dul dhigtay dadka masaakiinta ee Falastiiniyiinta ee duqeymaha xooggan ay ku socdaan. qodobadaas ayaan barnaamijkan uga hadli doonaa daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo Caalami 24. fiidiyoga noo share gareeya, YouTube-kana subscribe noo saara daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay si bulsho badan aan u gaarin dhiirigelin ay noogu noqoto. mahadsanidin. dagaalada ka socda magaalada Gaza iyo hareeraheeda ee Falastiin Israa'iil u dhexeeya ayaa sii xoogeysanaya, gaar ahaan kooxaha Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Islaamic Jihad oo dagaal xooggan kala hortegay Israa'iiliyiinta Sabtidii lasoo dhaafay. weerarka Xamaas ay ku qaaday dhanka Israa'iil ayaa khasaare xooggan dhaliyay, dhanka Israa'iilna khasaare xooggan soo gaarsiiyey, taas oo keentay in dhibaatooyin aad u xooggan beddelkeeda ay soo gaaraan dadka Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay bilowday duqeyn aan loo meeldayin oo ay ku garaacayso deegaanada dadka shacabka Falastiiniyiintu ay degan yihiin. sidoo kalena sida la ogyahaba biyihii, korontadii, shidaalkii dhan kasta ayay ka goysay, iyadoo dalabaad badan oo qaramada midoobay ay ka dalbatay iyo hay-adaha bini'aadanimadu in la fasaxo dadkaasi gargaarka la gaarsiin lahaa ee biyaha iyo cuntada iyo daawada isugu jira. ay Israa'iil shuruud uga dhigtay si ay u soo daysay inay marka hore Xamaas meesha ka baxdo, sidoo kaleetana maxaabiistoodii la soo daayo. Israa'iil waxay sheegtay in marna aysan soo dayn doonin adeegyada ay ka jartay shacabka Falastiiniyiinta inta Xamaas deegaankaas ay xoog ku leedahay, sidoo kaleetana maxaabiista ka xirxiran la soo daynayo. duqeymaha ku socda magaalada Gaza ayaa marmar ka dambe sii xoogeysanaya, iyadoo Israa'iil ay mar ka dambeysa labanlaabayso duqeymaha ay ku garaacayso. dhawaanay Israa'iil shaacisay 6,000 oo bambayn ka badan inay ku garaacday magaalada Gaza, taas oo deegaano badan oo Gaza ka mid a u ekaysiisay dhul lama degaana, aadna u burburisay deegaanadii shacabku ay deganaayeen. dadka Falastiiniyiinta dhintay ayaa 550 qofood kor sii dhaafaya, halka dhaawacuna 6,000 uu ka badan yahay. Israa'iil dhinaceeda waxa ay sheegaysaa in dhimashadeedu ay ka badan tahay 1,300 oo qofood, halka dhaawacuna sidaasoo kale uu sii marayo ilaa 3,000 in ka badan oo qofood. gantaalaha Falastiiniyiintu ay tuurayaan ayaa weli ku dhacaya qaybo badan oo ka mid Israa'iil, kuwaas oo khasaare xooggan ay geysteen aan Israa'iiliyiintu weli aysan soo tabinayn. sidoo kale isku dhacyo ayaa ka jira maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa dhinaca xadka Lubnaan iyo Israa'iil. isku dhacaasi oo yimid kadib markii kooxda Xisbullah Iiraan ay taageertay Lubnaan ay gantaalo ku weerartay qaybo ka mid ah dhulka Israa'iil ay xoogga ku haysato. saraakiisha qaramada midoobay ee hay'adaha caalamka ayaa in badan dalbanaya in dagaalada la hakiyo arrimo bini'aadanimo dartood, hase ahaatee Israa'iil way ku adkaysatay inaysan marna hakin doonin oo dagaalada ay sii wadi doonto. waxaa Israa'iil garab taagan wadamada reer galbeedka oo Mareykanka iyo Ingiriisku ay ka mid yihiin, kuwaas oo maraakiib dagaal iyo hubba u soo diray Israa'iil, waxaana maraakiibtooda dagaalku ay ku sugan yihiin xeebaha magaalada Gaza deegaano ku dhow si ay uga ilaaliyaan in dhinaca badda ay gargaar uga helaan ama se looga dhawarjabiyo Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo shalay booqasho ku yimid Israa'iil ayaa mar kale ku celiyay in Israa'iiliyiinta garab taagan yihiin sidii ku burburin lahaayeen awoodda Xamaas. waxaa la sheegay in Antony Blinken uu sidoo kaleeto hadda ku sugan yahay waddanka Jordan, gaar ahaan caasimadda Ammaan, halkaas oo kula kulmi doono boqorka Jordan boqor Cabdallah iyo si lamid ah madaxweynaha kooxda Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas. ujeedka Blinken ayaa lagu sheegay in gobolka uu ka dhaadhiciyo in kooxda Xamaas laga qayb qaato baabi'inteeda iyo shacabka Falastiiniyiinta, sidoo kaleetana uu kala hadlo sidii loo soo dayn lahaa dad badan oo dad Mareykan ay ku jiraan oo Xamaas dadka ay qafaasheen ka mid ah. Mareykanka ayaa sidoo kale qorsheynaya sida ay sheegeen in ciidamo aad u tababaran oo kumaandoosa kana qayb qaadan kara soo daynta dadka xiran ay u soo diraan Israa'iil si ay howlgalka militari oo Israa'iil ay qorsheynayso ay qayb uga noqdaan. duulaanka Israa'iil ay qaadi doontay dhulka ayaa la sheegay in maalmaha Sabtida ama Axadda laga yaabo inuu bilowdo, iyadoo ciidamo aad u tiro badan oo 300,000 ka badan ku soo daabushay xuduudka Gaza. Israa'iil waxay sheegtay in muddo 24 saac gudahooda dadka ku nool waqooyiga magaalada Gaza ay dhinaca koonfureed u guuraan. dadka halkaas ku nool ayaa la sheegay in 1,100,000 oo qofood ay ka badan yihiin, waxaana qaramada midoobay walaac xoogan ka muujisay dalabka Israa'iil, taas oo lagu sheegay inay ka dhalan karto arrimo bini'aadanimo aad u daran. qaramada midoobay waxay dalbatay in go'aankaas Israa'iil ka soo baxay
ee dadkaas meesha looga rarayo laga laabto sida uga dhaqsiyaha badan. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa la sheegay wadamada Iiraan ay taageerto ee Lubnaan iyo Syria inuu booqasho ku yimid. Kooxaha la aaminsan Iiraan inay taageertay ka howlgala Ciraaq, Syria iyo Lubnaan ayaa ku hanjabay in ayaguna ay tallaabo qaadi doonaan dagaalka Israa'iil lagula jirana ay ballaarin doonaan. Wasiirka arrimaha dibadda ayaana la aaminsan yahay inuu ku dhiirigelinayo kooxahaasi sidii culays ay Israa'iil u saari lahaayeen, inkastoo Iiraan ay iska fogeysay inay ku lug leedahay dagaalka kooxaha Falastiiniyiinta ay ku qaadeen dhanka Israa'iil. Sidoo kale dadka falaqeeyaasha in badan oo ka mid waxay aaminsan yihiin in duqeynta iyo go'doominta Israa'iil ay uga gol leedahay in dadka Falastiiniyiinta guud ahaan laga saaro Gaza si ay Gaza guud ahaan u burburiso una qabsato mar kale. Dhinaca Masar ayaa la sheegay inay damacsantahay in dadkaasi ay u soo qaxaan, iyadoo Masarna beddelkeed ay bilowday inay xuduudkeeda xirato, hal qofna ay u diido inuu xuduudka ka soo gudbo. Dadka Falastiiniyiinta guryahooda ka cararay ee gabaadka ka raadsaday meelaha hay'adaha caalamiga ee qaramada midoobay ay degan yihiin dadka lagu gargaaro ayaa la sheegay inay kor u dhaafayso 423,000 oo qofood. Dadaadu fara badan ayaa eheladooda ku waayey, welina duqeymaha si arxan darra ayay u soconayaan. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii koobnaa uga hadlaynay xaaladda dagaalada Falastiin iyo Israa'iil.